fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. cashirkan waa cashirkii afraad. waxaa ku qaadan doonaa sida loo sameeyo default information. saddex ugu muhiimsan: customer default, vendor default iyo inventory default. markaan rabno inaan sameyno default information, waxaa tagaynaa maintain, then waxaa tagaynaa meeshan qoranta default information. anaga hadda cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay customer default information. horta default information wax qasab ah ma ahan, laakiin wax kuu fududeynaya waa inaa shaqada aad samaysatid. marka customer default markaa imaano, waxyaabahan ugu muhiimsan terms and credits ugu horeeyo. starter terms kuwa ugu caansanaa jiro, shantaana ugu caansan, shantaana oo standard oo loo yaqaano. tusaale kan ugu koreeya wax kale maahan, cash on delivery waa. cash on delivery haddii aan fiirino wax kale maahan, waxaa qofkan ma waxaa lacag ka qaadanaa marka alaabtaas siiyo. tusaale camal markii alaabtaas saas u siiyo oo lacagta isiinaa, haddii nidaamkaadu saas yahay kaasha isticmaalaya, oo inta badan dukaamanka caadiga isticmaalaan. qofka marka alaabtiisa oo lacagta ku siinaa. sidoo kale kana waxaa prepaid waa, horumaris waa. qofka tusaale camal horumaris ku siinaa, lacagta kuu horumarinaa, kadib baa alaabta siinaya, ama meel kala joog, ama ka daahe, ama meel ka dalbo. kaasaad nidaamkaas isticmaalaysa kana isticmaalaya. sidoo kale kana waxaa waaye number in number of days. kana waxaa maalmaha u qabanaya, maalmaha ka sugaya. for example, qofka waxaa ka sugaynaa for example 30 cisho, 30 beri. inta waxaa loogu talagalay net in due 30 days. inta qofka waxaa ka sugaynaa 30 beri. meeshaana haddii ay imaan ayadana waxaa loogu talagalay discount in 10 days. qofka 30 beri ka sugayna soo maahan, discount loo sameynaa 10 beri gudaheed hadduu ku keeno. 30 beri 10 beri ugu horeysa gudaheed hadduu ku keeno, discount loo sameynaa. discount loo sameynayo waa imisa? waa 2%. for example 30 beri qofka diinta ku lahayn 10 beri gudaheed ku keeno 2% uu helaa. qaybtaas waa mid. tanna waxaa waaye due on a day of the next month. bishaan qofka wax naga iibsaday bisha ku xigto maalin kamid ah oo na siinaa. for example bisha soo socoto 9keeda na siinaa. tusaale camal due on the 9 next month. bishaan wax naga iibsaday bisha ku xigta 9keeda na siinaa. kana ugu dambeeya waxaa due at the end of month. bisha hadda ku jirna dhamaadkeeda na siinaa. bisha haddee maanta 25 marayso, hadda for example bisha aan ku jirno bisha May waa 10keeda la marooyaa. kan haddii aad doorno qofkan diinta waxaa ka rabnaa bisha May 30keeda. bisha hadda ku jirna dhamaadkeeda aad dooranee. marka anaga waxaa noo doortaa due on in number of days. intana waxaa noo dhigtaa 30 beri. taas waa mid. hay ma haddaa hore usii socdo, credit limit a meeshaan ku taalo, yacni 2500. for example qofka customer-adan deymaha ku leenahay, tirada ugu dambeysa oo credit limitka gaarsiin karno meeqa waaye? 2500. 2500 marka la gaaro, meesha waxaa noo qoran notify of limit. 2500 haddii la gaaro na xasuusi, waa ka bedeli karnaa, tiradaana ka dhigi karnaa. intana waxaa ka bedeli karnaa. for example no credit limit aa dooran karnaa. qofkan wuxuu raba ka qaato, limit dhan ha u yeelin. meeshan waa xirmato waa ujeediin, wuxuu raba qaadan karaa. kan ku xiga notify of limitna kii hadda waa noo doornay. marka 2500 la gaaro, tirada halkaas la gaaro na xasuusi. kan ku xigana waxaa always notify, mar walba nala socsii. haddii hal door uu qaato nala socsii. kan waxay ku fiican tahay, waxay fiican tahay kan markii yaartay customerka inaa ogaatid balance uu maraayo. kan haddii aad dooratid mar walba customerka balance-kiisa waa la soconaya. kanna waxaa whole of limit, limitkaas igu celi, yacni 2500 ka badan ma qaadan karo. 2500 hal hadduu gaaro aad gelisid safe makaa yeelaayo, wuu kaa diidaa. kan ugu dambeeya oo ah always notify, yacni kan waxaa waaye isna ilaa yacni ogolaansho aa ka siinaayo waxba deen haysiin. kanna waxaa waaye qaybtaana waxaa waaye yani customerkaada sida ayaan mid kamid ah customerkaada sida oo defaultiga u samaysan lahayd. marka anaga waxaa noo doortaa notify of limit, mar walba tiradaas hadduu gaaro nala socsii. inta waxaa noo qoran GL sales account. markii akoonka aan sameyno, yacni sales markaa sameyno, akoonka salesku sameynaya keewa. marka anaga waxaa noo samaysan akoon lahayo sales revenue. akoonkaas aan ku xirinaynaa. sidoo kale meeshan waxaa ku xiran discount GL account. qofkii 10kan beri ka faa'iideysto discount uu leeyahay. akoonku sameynaya akoonkeewa. anaga akoon hore oo discount lahaa uma soo samaysan, hadda waa samaysan karnaa, waa ku darsan karnaa. haddii kalena waxaa ka samaysan kartaa yacni akoon oo income waa iskaga xiri kartaa, sida hadda income kuu samaysnaa. laakiin anaga hadda noogu dar. markaan rabno inaan ku darsano akoon cusub, new aa dhehe, yacni wuxuu ku geenayaa bilaaw sida akoon qaab meesha ka samey jirna la geenaa aad taqaanay. waxaa nooga dhigtaa 4300 maadaama oo income 4 ka bilaabanaya. waxaa noogu qortay inta sales discount.
typekiisana waxaa waa income. save close ida waa kana. marka inta waxaa iisoo doortaa sales discount. intaas waa mid. intana account agent wax kale ma ahan. meeshan waxaa ku baranaynaa cimriga deymaha naga maqan cimrigo intee waaye. for example deymaha 30 beri 30 ilaa 30 beri gaaraya waxaa waaye 0 ilaa 30 kasoo muuqanaya. sidoo kale deymaha 60 31 ilaa 60 kasoo muuqanaya si lamid ah kuwaana. intana waxaa noogu qoran deymaha ma waxaa kasoo bilaabanaa due date-ka. for example due date-ka meeshan waxaa noo haya ilaa 30 beri kadib maa kasoo bilaabanayna deymaha mise invoice date maalinta invoice-ka oo data la qaadanaya maa kasoo bilaabanayna anaga due date-ka noo ahaato. sidoo kale meeshan waxaa noogu qoran customer field. customer field waxaa waaye customer-ka markaa sameysanaysa field-yaas kaa soo darsan kartaa. for example had inta waxaa iga qortaa magacii adhehe xaafadiisa. for example hodhow customer-ka markaa sameysanaysid ciwaan box waxaa kusoo baxaya xaafadiisa meel aa qori kartid qofka xaafadiisa. sidoo kale intan waxaa iga qortaa damiin camal qofka damiin ah camal waxaa rabtaa waxyaabo kale oo adna isleedahay ku anfacayaan oo kusoo darsan kartaa oo qofka rabti inaad ka ogaatid. sidoo kale intana finance charge waa finance charge wax kale maahan. waxaa loogu talagalay customer-keena markii oo 30 beri maadaama aad deynta ilaa 30 beri kasugayna aan dhahno 30 beri wixii ka dambeeya uu dhaafsiiyo yani charge aa saareyna inta ma waxaa kasoo bilaabanayna kan on invoice waxaa waaye 30 beri markii la dhaafo maadaama 30 beri noo doorneed 30 beri markii la dhaafo kadib aa saareyna days overdue up to. kanna waxaa loogu talagalay for example kun noo dhah waxaa waaye yani deymaha ilaa kun gaaraya deymaha ilaa kun gaaraya ajaarta saareyna. for example markii deymaha kun gaaraya ajaarta saareyno meeqa percentage aa saareyna annual interest rate ka saareyna meeqa waa 2% for example camal. deymaha kun ka badanna yani deymaha ilaa kun gaaraya dhahna somahan deymaha kun ka badanna meeqa saareyna waxaa saareyna 5% aa saareyna. hay tirada u yar aad anaga maadaama kun aa dhahnay tirada u yar aad deyn finance charge aa saari karna meeqa waaye ma $1 saareyna mise $2 saareyna mise 100 saareyna. marka anaga waxaa ka dhiganaynaa deymaha 100 deymaha u yar finance saari karno waa 100. yani meeshan waa fahanna marka kan waxaa u talagalnay deymaha days deymaha u dhaxeeyo waxay noqonayaan deymaha ilaa kun gaarayo charge aa saareyna meeqa waa 2% waa. deymaha kun ka badanna meeqa saareyna 5% saareyna. hay ma waxaa saareyna deynta tirada u yar finance charge saari karna meeqa waa waxaa inta waxaa dooranayna 100. tirada u yar ahaanta aad rabtid aa gashan kartaa meeshaas. I think ina fahmay. horaa u socono meeshan waxaa waaye maadaama saarnid charge aa saarnid xataa heleno akoonka oo akoonka income-ka uu saameynayo akoonkee waa intaa ka dooranayna finance charge account laa sameysan kartaa. haddaa rabtid account other income iskaga xiri kartaa. ana other income iga xir laakiin finance charge account laha waa lagu xirtaa inta badan wuu jiraa waa la sameystaa other income. intaas waa mid. kan ugu dambeyn waxaa waaye payment method. lacagahan yani dadka say u dhiibayaan qaabka u dhiibayaan qaab noocee waa. for example aniga hadda cash waana la siiyaa. jeegna waxaa waaye bangiyo waa noo sameysnaay. visa ma isticmaalo anaga. mastercard hadda mar dhow nagu soo kordhay wadankeena kaasna ma isticmaalo. discoverna ma isticmaalo. inta hal mid oo dheeraad noogu dara avc plus qofkii wuu ku dhiibi karaa. intaas waa mid. intaanu customer field ku saabsanaa intaas kusoo gabagaynaa.